السلام عليكم maalin wanaagsan ku soo dhawaada janaalkeena maanta waxaynu qaadan doonaa casharkeena maadada anatomiga casharkii waxaynu maraynaa sideedaad casharkaani maanta waxaynu ku baran doonaa qodob aad muhiim ah oo ah upper limbs oo ah adiminka kore waxaynu ku baran doonaa laba qodob oo aad muhiim ah labadaas oo qodob oo kala bones of waxaynu baran doonaa upper limbs oo ah lafaha upper limbs ay leeyihiin iyo waxaynu kala baran doonaa qodobka labaadna waxa uu noqon doonaa anatomical structure of upper limbs ayuu noqon doonaa oo ah qaab ahaan anatomy ahaan markaynu fiirno qaabkay u samaysan yihiin lafahaasi loo yaqaano upper limbska dhammaadka casharkan intaynu ka gaarayno waxaan rajaynayaa inaad la socon doonto biidnillaahi jalla wacala haddaynu ku bilaabno qaybteena koowaad casharkeena maanta casharkeena sideedaad oo aynu ku qaadan doono maadada anatomiga oo ahaa upper limbska ama lafaha loo yaqaano adiminka kore lafahani qaybtani koowaad waxaynu ku baran doonaa bones of upper limbs horta lafaha loo yaqaanaa upper limbska lafaha loo yaqaano upper limbska waa lafahan soo socda midda koowaad waxaa loo yaqaanaa humerus waana lafta garabka lafahan inta badan waxa ay ku jiraan gacanta Soomaaliyan waxaynu dhahnaa min garabka ilaa iyo laga gaado mijinta ilaa laga gaaro waxaynu dhahnaa gacan ayaynu dhahnaa balse saas maahan markii loo fiiriyo caafimaad ahaan ama loo fiiriyo eray ahaanba waxay noqonaysaa qaybtani waxaa loo yaqaanaa arm qaybtani waxaa loo yaqaanaa gacanta kusoo xigta forearm qaybta gacanta aynu dhahno mijintana waa meesha loo yaqaano handega ama gacanta haddaba marka saddexdaasi qaybood markaynu toos u kala sheegno laftani waxaa loo yaqaanaa terminology ahaan humerus ayaa loo yaqaanaa laba laf ayaa ku xigto lafta garabka labadaasi lafna waxaa loo yaqaanaa ulna iyo radius ayaa loo yaqaanaa ulna iyo radius ayaa loo yaqaanaa laf kale waxaa jirto ama lafa kale waxaa jiro soo gala gacanta intay soo galaan gacanta khaasatan meesha waxnu ku qabsano oo aynu naqaano mijinta waxaa soo gala marka lafaha soo socda oo ah carpals iyo waxaa soo gala metacarpal iyo phalanges dhammaan markii la isku daro adiminka 30 lafood jira right-ka iyo 30 lafood jira bidixda markii la isku daro waxay noqon doonaan lafa gaaraya 60 lafood haddaba markaynu u gudubno qaybteena labaad ayaynu u gudubno casharkeena maanta oo aynu ku baranayno anatomical structures of bones of upper limbs oo ah qaabka anatomy ahaan ay u samaysan yihiin lafahani loo yaqaano upper limbska waxaynu ku bilaabi doonaa lafta koowaad oo loo yaqaano humeruska oo aynu ku sheegnay lafta garabka laftani waa midaan inta ka aragtaan laftani waxa ay ka tirsan tahay lafaha loo yaqaano long boneska laftani ama lafaha loo yaqaano long boneska waxa ay anatomical ahaan leeyihiin saddex structure oo ay ka wada sameeyeen yihiin oo ah qaybta kore oo loo yaqaano proximal epiphysis oo ah qaybta kore oo headkaynu dhahno qayb dhexe oo loo yaqaano diaphysis ama waxa loo yaqaanaa shaft ayaa loo yaqaanaa iyo qaybta ugu hooseysa ee loo yaqaano distal epiphysis waana ah lugta ama meesha ay ku taagan tahay laftaasi lafahani loo yaqaan marka long boneska oo ay ku jirto laftan humeruska iyo lafta cajarka intaasi ayaynu kaga gudbaynaa khaasatan inaynu ku hor sheegno waxa ay ka wada sameeyeen long boneska humeruska waxa ay leedahay marka structure anatomical ahaan oo u kala baxa epicondylis fossa olecranon notch intaas dhan insha Allah waynu sheegi doonaa waxa loo jeedo hal mar ila daawo fiidiyogan kadib aynu isu soo laabano muuqaalkan si aynu u dhamaystirno waxyaabaha mugdiga ku jira ee aad ka daawatay fiidiyogaas haddii aynu ku bilaabno lafta koowaad ee loo yaqaano humerus laftani waxay ka bilaabataa garabka waxayna ku dhamaataa xusulka laftani qaybteeda kore haddaynu sheegno waxa ay ka kooban tahay qayb loo yaqaano greater tuberosity lesser tuberosity iyo groove loo yaqaano ama god loo yaqaano jeex ah loo yaqaano intertubercular groove qaybta kore ee madaxa waxa ay leedahay madax loo yaqaano head of humerus laba neck ay leedahay oo ah laba qoor labadaasi qoor oo kala ah anatomical neck iyo surgical neck midda kore waa anatomical neck midda labaadna waa surgical neck haddii aynu soo talaabno qaybta dhexe laftani waxa ay leedahay laf loo yaqaano ama qayb loo yaqaano deltoid tuberosity oo ah laf wax yar soo yara baxsan oo loo yaqaano deltoid tuberosity gadaal dambe marka laga fiirino waxa ay leedahay qayb ka tirsan lafta oo jeex ah loo yaqaano radial groove qaybta dhexe laftani labadaas structure ayaa ku jira qaybta hoose aynu u baxno marka qaybta hoose iyadana waxay leedahay two epicondyles oo loo yaqaano lateral epicondyle iyo medial epicondyle midna waxay soo xigtaa structurekaas waxa uu soo xigaa gudaha ama qaybta dhexe ee jirka midda kalena waxay xigtaa qaybta dambe ee jirka
waxaa loo yaqaanaa lateral epicondyle waxay kaloo leedahay iyo medial epicondyles waxaa kaloo structuradaas ka mid ah lateral supracondylar ridge waxaa kale ka mid ah medial supracondylar ridge waa sida lateral epicondylar iyo ay u leexdo kale uu leeyahay radial fossa ayaa jiro oo ah godkaasi ay u jeedaan waxaa kaloo ay leedahay medial epicondyles waynu soo sheegnay trochlear ayay leedahay oo ah laf wax yar soo af leh oo ku salaxan ama ku dhegan gidaarka laftani ay leedahay laftani waxaa kale ay leedahay fossa ama god loo yaqaano oo coronoid fossa iyo coronoid fossa ay leedahay intaasi ayaynu kaga gudbaynaa laftani loo yaqaano humerus طبعا muuqaalka hada si fiican ayaad u fahantahay aan filayaa balse wax yar mugdi ayaa ku jira waan saxnay aan filayaa aynu isla fiirino marka mugdiga yar waxaan filayaa ereyada qaar sida groove oo kale fossa oo kale iyo ereyga ah tooth porosity oo kale inaad ku wareertay ereyadaasi in wax yar marka bidaamino ereyga groove waxaa loo yaqaanaa jeex waa maxay jeexaasi waa lafta dhexdeeda haddii ay leedahay jeex ama canal structure oo kale ama sida canal oo kale qaab u samaysan oo jeexan ah haddii aad ku aragtid waxaa loo yaqaanaa groove lafaha qaar ayaa leh marka okay haddii aad ku aragtid fossa oo kale fossa waa maxay waa godkaasi waa maxay lafta waxay leedahay meel duusan ama sida circle god ah noocaas oo kale haddaad ku aragtid waxaa loo yaqaanaa iyadana fossa ayaa loo yaqaanaa noocna ereygaasi waa isku mid tuberosity iyo tubercle erey loo yaqaana ayaa jiro tuberosity tubercle iyo process saddexdaas ereyna waxa ay u taagan yihiin laf qayb ka mid ah oo soo taagan qayb lafta ka mid ah oo soo taagan oo ah u malaysid inay ka soo yar dusan tahay ama ay ka soo baxayso ayaa loo yaqaanaa tuberosity iyo tubercle iyo ereyga loo yaqaano processba haddaba marka qaybaha kale ee inoo haray khaasatan sida qaybtan hadda soo socoto oo ah forearmka oo labada lafood ku jira oo ah ulnar radius iyo gacanta oo iyagana ku jira carpal metacarpal iyo phalanges insha Allah iyagoo hal muuqaal ah in la daawo intaynu gabagabeeynin casharka structurada ay leeyihiin labadan lafood ee loo yaqaano ulnar iyo radius aynu wada fiirino marka radiuska ulnar horta waxaa isku haya membrane loo yaqaano interosseous membrane ulnar waxay inta badan leedahay haddaynu fiirino olecranon process ay leedahay waxaa kaloo leedahay trochlear notch ay leedahay trochlear notch coronoid process proximal radio ulnar joint yani labadaba waa uu leeyihiin waa uu ka dhexeeyaa radialkana qaybta hore headka waxay ka leedahay radial notch head neck iyo waxay ka leedahay radial tuberosity radiuska qaybta hoose haddaynu fiirno styloid process ayuu leeyahay of radius waxaa kaloo jiro ulnahan waxay leedahay ulnar notch head of ulnar waxa uu ku yaalaa hoose ayuu ku yaalaa waa inverse waa isdhaafsan yihiin labada lafood marka la fiiriyo sidoo kale iyadana waxay leedahay styloid process ayay leedahay waxaana ay meesha ku yaala joint loo yaqaano distal radio ulnar kii hadaay wuxuu ahaa proximal kana waa kii cagsigiisa weeyaan waana distal radio ulnar joint anatomical structures of bones upper limbs khaasatan lafahan loo yaqaano ulnar iyo radiuska inta ayaynu ka gudbaynaa aynu u gudubnaa marka lafaha loo yaqaano bones of hand lafaha gacmaha ayaynu gudbaynaa oo ahayd carpals iyo metacarpal iyo phalanges waxaynu soo gaarnay qaybteeni ugu dambeysay lafahan loo yaqaano upper limbska oo ah bones of hand bones of hand waxaa inta badan ku jira saddex group oo lafa ah kuwaas oo ah carpals oo 8 lafood ah metacarpal oo 5 lafood ah phalanges oo iyagana 14 lafood ah haddaba aynu kala sheegno marka carpalska waxay ka kooban yihiin 8 sidaynu hore u sheegnay lafahani carpalska oo 8 lafood ah waxaa loo yaqaanaa wrist bone ayaa loo yaqaanaa lafahani waxay ka kooban yihiin 8 saas oo kala ah 8daas oo kala ah scaphoid lunate triquetral pisiform trapezium trapezoid capitate iyo hamate lafaha metacarpalskana waxay iyagana ka kooban yihiin 5 oo ay la socdaan 5 farood midda koowaad midda labaad midda saddexaad midda afraad ilaa midda shanaad phalangiskana waxay ka korayaan faraha iyagana waa yihiin 14 lafood 14 kaas lafood ayaa ah waxaa loo kala qaybiyaa horta anatomical ahaan proximal phalanges middle phalanges iyo waxaa loo kala qaybiyaa distal phalanges ayaa loo qaybiyaa marka kaliya laga reebo suulka ma lahan middle phalanges laakiin inta kale waxay leeyihiin middle phalanges suulka kaliya waxa uu leeyahay proximal phalanges iyo distal phalanges ayuu leeyahay sidaa darteed 5 ilaa markii la isku daro 5 kale waxay isku noqonayaan 10 marka afar lagu darano 14 oo ah middle phalanges oo 4 ah proximal phalanges oo iyagana 5 ah distal phalanges oo iyagana 5 ah 5 haddii 5 aynu ku darno waa 10 haddaynu 4 ku darno waa middle phalanges kana waxay isku noqonayaan 14 kaas faroodna waa inta haddaba waxaan intu kaga gudubnay upper limbska khaasatan qaybteedii ugu dambeysay ahayd bones of hands
sawirkani ugu dambeeya ayaynu ku dhamaanaynaa daabo lafahaynu hadda sheegaynay iyo meelahay ku kala yaalaanba. waxaynu soo gaarnay gabagabadii casharkeena. maanta casharkeenii aynu ku baranaynay maadada anatomiga khaasatan upper limbska oo ah lafaha loo yaqaano adimanka kore oo ah lafaha gacmaha. waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahantay. casharkani casharka xiga intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.